fara badan oo ka tirsan golaha xukuumadda Soomaaliya waxa si diiran ugu soo dhaweeyay dhabada diyaaradaha ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Mudane Cabdilqaadir Kaamil Maxamed iyo xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee dalkeena. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya booqashada uu ku yimid Djibouti waxay sidoo kale la xiriirtaa wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya waxaana muddada uu dalka joogo uu la kulmi doonaa madaxweynaha Somaliland oo ay si anbaqaadi doonaan wada hadalladii labada dhinac ku yeesheen London iyo Ankara. madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa maanta hoteelka Campeski ugu fidiyay xarimo sharafeed labada hogaamiye. labada wafdi waxay wada hadalladu u bilaami doonaan maalinta bari ah.